بسم الله الرحمن الرحيم. زاهر محمد. فيديو waxaan hadli doonaa toolbar iconska oo qaybahan kore oo iconskan maxay yihiin, maxaa loo isticmaalaa iyo faa'iido leedahay in la isticmaalo. badanaa hadda markii xog aan SPSS-kan kugu jirin wax active ah hadda badanaa ma jiro marka laga reebo recall-ka iyo variables-ka iyo split-ka iyo selected variable-ka iyo others. laakiin muhiimadda waxaa waaye markuu horeyso inaad xog haysataa. hore video lasoo dhaafo waxa uu soo hadlan qaabka data entry loo sameeyo, laakiin hadda maanta example-ka waxaa isticmaali doonaa exampleska oo SPSS-ka leeyahay. qofkii aan ogeyn qaabka sample datada oo SPSS-ka uu leeyahay, videoga data entry-ga kaga soo hadalnay, videogaas ku laabo soo daawo. laakiinse anaga hadda meeshaan waxaa tegaynaa welcome dialogue, kadib waxaa dooranaa hal sample ka mid ah. marka intaan waa sample data oo SPSS-ka leeyahay waaye. marka haddii aan welcome dialogue versionka uu lahayn, waxaa tagtaa mataqaanaa video hore data entry kaga soo hadalna xagga sample-ka ah oo laga heli karo qaab oo manual way ah. marka data dooran doonaa. marka maanta waxaas dhahaa datadan badanaa maalmahan employment tanayna marka employment tagaynaa. marka how employment data kale employee data ku dhufanayna. marka xagan selected aad sameyso waxaad taabanaysaa open soo kuu furmo. وكان داتا وانا soo baxday. hadda qaybtan hore ugu soo hadalnay waa variable view, waa qaybta xogta variables kala geliyo kadibna la qeexo waxay yihiin oo by label ahaan, definition ahaan iyo values haduu jiro, missing haduu jiro, haduu uu yahay measurement scale ka nooc uu yahay iyo columns-ka wax dhan halkan kaga soo hadalnay. video hore kaga soo hadalnay marna aad waqti geliyo aan tagana qaybta view data aan tagaynaa. marka xagan tagno just kan aan toosiyo. marka datadan haysana ID, gender, date-ka, education level, job card-ka, salary iyo salary beginning oo kale iyo job time-ka xilliga qofka shaqeey iyo previous experience iyo minority. just minority waxa filan Mareykanka just waxa waa Hispanic iyo black iyo saasay u kala saaraan. marka saasa badanaa dadka loo kala saaraa. markii aan xagan taaganahay waxaa sameynaa qaybtan wada ognaa waa qaybta open datada laga soo furaa. qaybtan waa qaybta saving-ka, qaybtan waa taqaanin waa iska welnon waa printing-ka waay. qaybtan muhiim waa qaybtan badanaa wuxuu ka saacidaysaa tusaale ahaan hadda markaa dhaho oo kale just analyze dhaho oo aan tago maybe descriptive statistic aan tagno maybe kadib aan dhaho maybe frequency, kadib aan doorto genderka aan ku dhufto kadibna okay dhaho. wadadii waxaa haysana frequency haysana. marka hadaa rabo oo kale inaa mataqaanaa arabo inaa isra ku celi macnaha same active, macnaha ma u baahnadan inaa tago data analyze inaa tago kale descriptive dhaho kadib frequency doorto. just waxaa sameynaa xaggan aad tagaysaa recall lahaa. marka all mataqaanaa activity aad sameeyey intuu uu shadeen SPSS-kan waaye. just marka waxa ugu dambeeya wuxuu ahaa frequency. marka frequency ku dhufanaysaa already. marka ma u baahnid inaad marka steps ka badan sameyn lahayd. marka last recall-ka kuu soo celinayo oo markaas active-ka ugu dambeeya ama action-ka ugu dambeeya aad sameysay oo ku geenaya. marka qaarkood waxaa laga yaabaa waqtigaas afgaraynaysaa. marka muhiimadaas uu leeyahay oo hadda waqtiga kuu soo koobaya. marka waxaa la lahaa record recent use dialogue lahaa. marka waa muhiim. kan waa taqaanin waa caan waa undo redo waay. marana badan ana ka hadlo just waa iska fudud yahay. xagga marka imaado kale qaybtan waxaa waa go to case waa. hadda case rabto kale observation waa. case daa maqasho markasta observation waa number of items oo kale. hadda adoo kale waxaa rabaa inaa baaro oo kale case-ka oo maybe 30. marka waxaa dhaysaa go. marka already wuxuu ku geynaa case-ka 30 ku geynaa. marka haddaa variable rabtana variable-ka arabta ku geynaa. haddaa tusaale ahaan arabo kale salary oo kale daa rabo. marka salary toos uu geynaa. waa kana saas waa active ku noqonaa. marka haddaa u baahan tahay oo kale inaa markaas hadda kan tusaale fiican maaha waa variable-ka araho data set-kan waa aad u yar yahay.
laakiin hadaa rabto kale ina data set aad u badan oo variables aad u badan ama marka la tacaamulayso mataqaanaa survey data kale oo survey oo wadanka dhan laga sameeyo oo intaas oo observe oo kun gaara 5,000 6,000 oo observation gaara oo variables kana gaara maybe 200 oo variable ah ya markaas oo kale waxa aad ku anfaca waxa waaye marka justice ku go to aad ahado kadib ama case-ka aad doorato ama variable-ka aad doorato toos ku geeyna marka waa aad u useful yahay sana qaybtan waxa waaye asagana go to variable waaye kasi same waaye asile waaye marka asaa laba kala baxayo laba icon oo kale yahay waxa waaye go to case iyo go to variable laakiin same waaye qaybtan the variables ka waxa waaye wuxuu ku sheegaa in variable wuxuu ku sheegaa labelkiisa marka macluumaadka ka helaysa tusaalahaan variable kan kala hadda employment category data kale name ka variable maxaa job cut waaye labelkiisa employment category waaye type uu yahay FMY marka types kan kale si goona uu soo hadlo doona maxaa yeelay spaces wuxuu leeyahay types uu leeyahay oo ku aqoonsado macnaha nooc uu yahay mataqaanad data variable kaaga nooc uu yahay markaas si goona uu soo hadlo doona qaybta missing values waasana waxa wax missing values ma lahan measurement ina waa nominal waa xagan waxa ka helaysa in values adoo jiro oo kale ama label adoo jiro marka xagan waxa ogaanaysa credit cardka iyo kasdoodayga iyo managerka inuu kala baxaan saddexaas label marka macluumaad badan ka helaysa xagan oo hadda u baahan tahay in variable-ka ogaato wuxuu yahay iyo wuxuu variable adogu oo tagay macnaha qaybtaas hada ku sii darno qaybahan kale marka hada si tagno qaybtan oo ku qoranta kale population menu وقيبتان waxaa waaye any variable marka qortaaganta oo kale hada u baahan tahay oo kale descriptive kiisa uu ku siinayaa hada ku dhufan oo kale wuxuu ku geenayaa mataqaana descriptive kasi automatically ku saar xaga ka tagaleed macna meeshan kore oo analyze tag lahayd oo toolbar ka tag lahayd marka waa aad u fudiyaa marka aad ku dhufato oo kale just aad hadid hatta wuxuu ku fiican yahay marka aad continuous tagto just wuxuu ku siinaa frequency oxina oo macnaha wuxuu hadba qaab u yahay datada ku meeshan karena oo frequency iyo descriptive ka saku kala qaadayo marka waa tool aad u fiican waasana waa tool aad u fiican waayo oo descriptive ka wada u baahan tahay kale emergency kale inaad waxaan ku ogaato kale aad u anfaca qaybtan finding kan waxa waa darabta inaad wax raadiso kale ama replacement sameyso marka finding waa taqaana any software ku jira macnaha software kasta ka hareysa marka macluumaad badan u baahan qaybtan kale split file-ka waxa waaye wuxuu ku caawinaa tusaalahaan waxa rabtaa in lagu kala dhigo mataqaana in lagu kala dhigo qaab oo mataqaana tusaalahaan waxa la job category in wax kasta oo aan sameynaa in job category lagu kala qaado rabaa hadaa raba in female rangareenayo waxa rabaa in job category lagu kala qaado marka variable arabta markasta in ku soo muuqdo kale kula qaybinaysa tusaalahaan hadda ku dhufo mad before and that aan xasameynaa marka hore waxa tagaynaa job category waxa dheena frequency dheena hadda marka xagan joogto waxa u jeedaa employment category-ga uma kala qaadno qaab oo male iyo female ama qaab oo manager ugu qaadno marka waxa rabnaa inaan soo gelino split miga sameeyno waxa arki doontaa in ay soo galaan variable-ka adiga aad danaynaysa inuu split ku sameeyo okay hadda hagan imaano just an fiirino maybe hadda all cases waxa waaye do not create group ma sameynay laakiin haddii hadda aan sameyno kale gender oo kale dhahno fiirino maybe okay marka waxa dheena recall dhahna frequency dhahna gender dhaho gender dhahna just aan dhahno employment category no employment category rabna employment category just dhahno aan dhahno okay هاي مركز employment category هني وهذا وجدي معناها مركز هداي وحوه هاي وكل قادنين male и female لكن هذا male и female وكل قادنين واحد كست هذا أو analyze جاي قصي واحد كست variable كست هذا أما هذا متقانا salary هذا أما هذا any maybe هذا just a minority ده that اسمه مركز وكل قادا female email وكل قادا محايلة adiga ma kor soo doortay oo qaybtana oo split variable ka ku korsaatay marka compare dhahday compare ku sameeyay marka wax kasta oo analyze gareenay waxa uu kala qaadaa based on gender
marka split file ka taas waa muhiim u yahay hadaa rabto ina adiga aad dareynayso in aad compare group oo gooni hadaa rabto kale xagana tagaysaa waa dooranaysaa marka ini active oo analyze aad sameynayso compare ka soo ku sameeyna marka ina fahamtina rajayna haddii aad ka dhamaysatan oo aad analyzing ka sameyso waxa ku laaban kartaa all ama just resida dhehaysa resida dhigata ama waxa dhehaysa just analyze all case kadib okay intaas marka tagna waxa kale oo muhiim ah qaybta marka tagna oo output-ka waxa sameyn kartaa markasta ina dhileed macnaha minimize waxa dhigi kartaa waxa ku soo kordhay qaybtan output waxa ku soo kordhay go to data marka go to data-daas adisa ama waxa sameyn kartaa export sameyn kartaa hada waxaan analyzing ka sameynay asagoo wuxuu ku siinaa oo PDF qaadan kartaa inta kale oo ka sameeyay qaybtan oo qaybta oo rangareynta oo syntax-ka iyo output-ka si goona ugu soo hadlayna insha Allah okay qaybtan kale waxa la lahaa select case Allah hadaa rabto in case gooni ah aad doorato oo kale oo dooranaysaa su'aalaha hada waxa rabaa educational level ka rabaa in aad ka doorto hal year ah bis ina ogaado marka hadaa u baahan tahay kale ina aad tagto variable view just double click dheh variable view ku geena kadib waxa sameysaa values ka fiiri waxa rabnaa ina ogaano values ka marka da values ka fiiriso waxa u jeedaa in oo level ka u kala duwan yahay level ka u kala duwan yahay marka ana marka waxa rabaa case ka level ka maybe 15 bis araba ina si gooni ah oo analyze gareysto marka oo educational level ka oo 15 yahay okay marka saraba ina analyzing ka ku base gareysmo marka waxa taga just waxa ku laabanaa data view hada u jeedaa all waxa waaye case waaye just select waxa dhada case marka hada all case waaye laakiin hadaa rabto condition ku xir kartaa waxa dhigi kartaa maybe if adeegta kadib waxa doonaysaa educational level marka waxa dhigi educational level ka haduu la mid yahay 15 yani waxa waaye case keegu wuxuu noqonaa only education ka 15 oo yahay clear raba ina data set ku sameeyo marka inta staabato waxa ogaanaysaa oo ujeedaa all cases waa uu cancel clear wuxuu ku fasaxay cases ka oo mataqaana oo 15 ka ahay 15 years ka ahay marka taas waxay ka caawinaysaa ina hada u baahan tahay kale ina variable gooni ah analyze ku sameeyso adigoo rabin inaad tirin data set ka qaar waxay sameeyaan data set ka tirtirayaan waxay ku soo reebaan variable ka rabaan clear inay analyze karaan ama gobol marka kood waxa dhici karta region hal regional bata bis ina adiga interest gareynayso data set kana waxa ku jiro maybe in all regions Soomaaliya ku jiro laakiin adiga waxa rabtaa hal regional rabtaa oo adiga aad dareynayso ina ama ina aqsamis research marka u baahnid inaad tagto mataqaana inaad tirtirto data set ka tagto aad tirtirto kaliya waxa dooranaysaa waxa tagaysaa select case ka tagaysaa region ka variable region ka dooranaysaa code ko ka yahay region ka dooranaysaa kaliya saas marka analyzing ka uu hagaaga hada data tagto oo kale maybe waxa la job category kale hada ano descriptive data ano already wuxuu ku siinaa mataqaana intii oo experience 15 ka ahay ku siinaa kuma siinaa all case kuma siinaa marka hada fiiriso hada job category hore meeqo ahay 474 ahay all cases ah hada da fiiriso micneed waxa waaye waa 116 taas micneed waxa waaye 116 kaas waxa waaye dadka experience yooda 15 ka yahay marka useful waaye ana aad u isticmaala marka waa select case ka sanad oo baahan tahay kale inaad adiga aad area aad daneynayso kale oo data set kana aad wada rabin waxa sameyn kartaa variable ka condition ku ah kadib ku isticmaalaysa okay hadda maadaama aad gool u rabno waxa sameyn kartaa reset ama waxa sameyn kartaa all case waa isku midkii waa kadib wax kasta wuxuu ku soo laabanaa sidiisa hore oo hadda u jeedaa all waxa waaye oo fiican qaybtan waa more statistically way badana laakiin waxa waaye hadaa rabto kale ina set isticmaasho kale variable set oo kale oo hadda or variable maarta ina kala qaado kale oo sameeyso qaab oo isku qaab wada xiriira ama qaab oo relation ka bixi ama ina datooyinka qaab ku aadanayna sabis ina doorato marka hadda wax weyn muhiim ah
kana sidoo kale waa customize waaye oo toolbarkaas ku dooranaysa toolbarka inaad ku darto wax ka dhinto adaa u baahan tahay lacala marka intaas waa inta maanta ka hadlayno waa waxa ka hadlaynay toolbar iconskan waxa u muhiimsan marka inta u muhiimsan intaas waaye hadaa just su'aal qabto comment igu dhaaf waxa filayaa sidaas inay wad kaliya